aniga ilaa hadda waxaan garan la'ahay horgale mar walba waa horgale. ninkan hadda hebelka hore la leeyahay wuxuu leeyahay awoogii ayaa subiyey 100 sano ka hor xuduudii ingiriiska waaba kasoo tagay. wuxuu awoogii ayaa subiyey macnaheeda wuxuu ka dhigayaa soo jireen baan ahay. dadka deegaanka dego laascaanoodoo dhan aniga ayaa jeebkii u jiraan oo ka mas-uul ayuu ka wadaa macnaheedu. marka dadkiibuu qiyasayaa suu u hadlayo wuxuu leeyahay garawaa qaxayso ama laascaano wax qof dhan oo dowlad u shaqeyso inuu u hadlo wax ku habbo hanjabaad u jeedid oo dadkiisa ugu hanjabaya oo wuxuu leeyahay 100 sano ka hor alaa xuduudda sameeyey ingiriis ma subin. bal ninkan dhageysta wuxuu ku hadaaqayo baro Soomaaliyay ila dhageysta ninkan. dhib ma wadno labada ay taagantay waxa weeye laascaanood iyo garowe midun baa qaxaya. haddii aad sii wadaan aad iyo aad baanu uga xunnahay. ciidanka Somaliland xalin buu joogaa, kacayuu joogaa, taleex buu joogaa. in la yiraahdo laascaanood xalin iyo laascaanood waxay u jirtaa 240 kilomitir. ciidanka Somaliland jooga 240 kilomitir ayay u jirtaa laascaanood. halka hadda uu kani laascaanood ka joogo 55 ama 60 kilomitir. marka waxaad arkaysaa in arrintu baroortu orgiga ka weyn ay tahay. ciidamada iyo waxa ka socda iyo reer hebelka ka socda iyo kuwa marba meel gobol kaga reer hebelka laga sheekaynayo. war reer hebel wax la yiraahdaa ma jirto. reer hebel annaga ah. kuwa reer hebel ee taleex uga codeynayay campaign-ka oo xalin uga codeynayo kacayo uga codeynaya madaxweynaha la doortay reer hebel idin lama wadaagaan. waxaan leeyahay qarankani wuu isku filan yahay inuu istifaaco oo xuduudihiisa gaaro. cidna duulaan kuma aha. cid uu duulaan ku yahay ma jirto. ma rabno inaanu cid Soomaaliya dhibno ama dhibaato loo geysto. ma doonayno inay dadkayagu ku sii haraan 26 sannadood baa sida ay waxay noqdeen dadka ugu hooseeya marka social service-ka loo eego wax barta ama biyo hela ama caafimaad hela. waxaana waxa ka mas'uulaha dad xuduudka garowe ku ilaashanaya danaha dadka deegaanka degan. ayr garowe ninayda kuma haysto. reer garowe aan address gareynaya ma ka hadlayo hadda nimanka la yiraahdo boosaasana ka hadli maayo, gaalkacyana ka hadli maayo. reer garowe aan la hadlaya. message-kan ha dhageysteen. reer garowe dalka waynu ku wada noolaan jiray ilaa ingiriis sida aynu xuduudaha u kala lahayn iyo markii gobolada Soomaaliya la ahaaba sidii xuduudaha loo kala lahaa waad garanaysaa. meesha xuduudda garowe martana waa dogti. garowe waa caasimad weyn oo ka mid ah caasimadaha dadka Soomaalida maanta ku nool yihiin. waa caasimad horumartay. anigu ma arag intay horumartay laakiin tiifiyada markaan ka daawado tii aan garanayay ma. waxaan leeyahay bashbash iyo baraare iyo barwaaqan qabta. horumar baad haysataa. waa dadka deegaanka lihi controlka diiday oo wixii la ogaa ka dhacay markaad controlka dabcay inaad soo kordhiso soo durkisaa. dadku labo bay taagan tahay. dhib ma wadno labada ay taagan tahay waxa weeye laascaanood iyo garowe midun baa qaxaya. haddii aad sii wadaan dagaalka iyo kacayda iyo reer hebelnimada. reer hebel aanu cid la nahayna ma jirtee dad Somaliland oo ummadda iyo
awowgay baa xuduudka sameeyey 110 sannadood ka hor kooraa sameeyey xuduudka nin beesha dhexeyna ma samayn ingiriisna ma samayn aan still waxaan ku adkahay in xuduudkaygu xuduudkaa yahay oo somalilander aan ahay oo aanu boundary kala jeexan oo caalamiya leenaho la wada og yahay adduunkooda dadka dhammaan somalilanderiska ee deegaanka aan ka soo jeedana waxaan leeyahay waktigii dadkan loo haysan lahaa cudhaadha waynu dhaaf taa cid aanu u daba fadhiisanayno ma jirto reer garowana 2 optionska bay haystaan nabad inaanu ku wada noolaanno oo ay gartaan in ay dal horumaray iyo magaalo horumartay joogaan oo aanu jecel lahay inaanu ku ixtiraamno annagana sidaa aanu ugu ixtiraamayno deegaankooda inay kaayaga noogu ixtiraamaan nin garowa ka hadlay iyo nin garowa joogaa xigmad uu leeyahay ma jirto dhulka cidda gacanta ku haysa oo maamusho waa la ogyahay reer garowana 2 option bay noqonaysaa arrimaha laga hadlaya waan ku noqonaya in laas aanood qaxdo iyo in garowa qaxdo isirka uu ku dhololayo madaxweynaha Puntland ma aha mid jira oo xaqiiqa oo runta ka turjumaya waa mid danaysi waqti yar oo taagan haddaan backgroundka dib ugu noqdo daaroodnimada lagu dhololayo iyo hartinimada lagu dhololaya ninkii Afrika ugu xoogga weynaa